Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada channelka Maxamuud Cabdilaahi Xasan. Maanta iyo video cusub oo ka hadli doona dalka South Africa. Channelka subscribe si videoda like gare comment-na xagga hoose ku qor. Dalka Koonfur Africa ama Republic of South Africa waa dal ku yaala koonfurta qaaradda Afrika. bari waxaa ka xideeya badweynta Indian Ocean, galbeedna waxaa ka xideeya badweynta Atlantic Ocean, waqooyi barina waxaa ka xideeya dalka Mozambique iyo Zimbabwe, waqooyina waxaa ka xideeya dalka Botswana, waqooyi galbeedna waxaa ka xideeya dalka Namibia. cabirka dalka South Africa waa 1,221,000 oo kiiloomitir oo square ah. tirada dadweynaha ku nool dalka South Africa sanadkii 2018 wuxuu ahaa 750,780,000 oo qof. xagga boqolkii 80 dadweynaha ku nool dalka South Africa ay yihiin dad madmadow. dalka South Africa wuxuu leeyahay 3 caasimadood. xagga caasimadda dowladda ay fadhiisato magaceeda loo yaqaano Cape Town. boqolkii 80 dadweynaha ku nool dalka South Africa waa Kristan, xagga ay muslimku yihiin boqolkii 1. luqadda rasmiga ee dalka South Africa waa afka Ingiriisiga, xagga dadweynuhu ay leeyihiin 11 af oo kala duwan. lacagta laga isticmaalo dalka South Africa magaceedu waa Randa. madaxweynaha dalka South Africa magaciisu waa Cyril Ramaphosa. dalka South Africa xornimadiisii wuxuu kala soo noqday gumaystihii Ingiriiska sanadkii 1910. dhaqaalaha dalka South Africa wuxuu ku dhisan yahay macdanta iyo warshadeynta iyo beeraha iyo ganacsiga iyo dalxiiska. waxbarashada dalka South Africa aad iyo aad ayay u wanaagsan tahay. xagga waxbarashadu ay bilaash tahay da'da u kala dhaxaysa 5 jir ilaa 12 jir. caafimaadka dalka South Africa isaguna aad iyo aad ayuu u wanaagsan yahay. xagga ay dowladdu ama xukuumaddu ay bixiso caafimaad bilaash ah. channelka Maxamuud Cabdilaahi Xasan wuxuu kuu rajaynayaa daawasho wacan iyo mid qiimo leh.
channelka subscribe si videoda like gare, kumadna xagga hoose ku qor.